Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waan salaam asxaabi magacaygu waa Asmo waxaan ahay 16 jir tanina waa walaashay lagu magacaabo Arwo oo jirta 10 sano sheekadeedu waa mid aad u la yaab badan intii aan bilaabin sheekadeeda asxaabi waxay xasuusanayeen inaad muuqaalka like saartaan mahadsanidin asxaabi sheekadeedu waxay ku bilaabanaysaa maalin maalmaha ka mid ah anigoo hurda ayaa waxaan ku toosay codka walaashay Arwo oo leh Asma hurdada ka kac hurdo kugu filan waad seexatay ka kac hurdada aan quraacane waxa yar sug Arwo midda kale hooyo ayaa quraacda ku diyaarinaysa ee dhibka iga dhaaf qofna ma joogo guriga aniga iyo adiga oo kaliya ayaana jooga guriga ee hurdada ka kac malaha beerta ayay joogtaa hooyo ee orod u tag maya waan ka raadiyay mana aanan ka helin Asma miyeena tani ahayn mid la yaab leh toddobaadkan maalin kasta marka aan tooso waalidkay ma joogaan guriga hawlwelin malaha waxay u baxeen inay wax soo iibiyaan ayna keen aan quraac diyaarsanay ayayna keen kadibna waxaan ka baxnay qolka waxaana soo aadnay jikada waxaana diyaariyay quraacda kadibna waxaan fadhiisanay miiska cuntada waxaana cunnay cuntadii aan diyaarsanay waxaan rabaa inaan tago iskoolka adiga sheekeynaysa xalay anigu waan jeclaan lahaa inaan ku geeyo iskoolkaas laakiin waxaa joognaa beerta ogowna magaalada waan ka fognahay aniga ayaana ku baraya cashara lagu barto iskoolkaas haye laakiin waxaan rabaa inaan yeesho saaxiibo aan la ciyaaro waxaan ku daalay waan ku caajisay guriga aniga ayaad igu caajistay maya kuguma caajisin ee waan ku jeclahay adna waa taqaanaa intaan ku jeclahay haye aniguna sidoo kale waan ku jeclahay hadda jooji hadalka cuntadana dhammayso maanta cashirkan ku dhigay uu dheeryahay kadibna Arwo waxay dhamaystay cuntada aniguna waxaan bilaabay inaan xasuusto markii aan yaraa ayaan magaalada deganayn kadibna waalidkay ay go'aansadeen inaan beerta u guurno ilaa maalintaasna dib uma aadin magaalada markii aan quraacda dhameynay waxaan bilaabay inaan anigu Arwo wax baro cashirkan aan u dhigo maadaama waalidkay maalin kasta banaanka ay joogaan intii aan cashirka barayay qof ayaa albaabka soo garaacay gaaway qof xilligan albaabka soo garaacaya waalidkii habeenkii ayay yimaadaan mana yimaadaan waqtiyadan oo kale ha furin albaabka Asma haye furi maayo walwalkana jooji halkanna joog aniga ayaa furayay Arwo ayaa tiri maya aniguna waan ku raacayaa Arwo ii raacday ilaa albaabka laga gaaray markii aan furay albaabka waxaan la kulmay wax la yaab leh waxa la yaab kale ayaana ahaa in qofka albaabka garaacaya uu ahaa nin ruuxaan ah Arwo way cabsatay gudaha ayayna u carartay waalidka ma joogaan ooka intay ka imaanayaan waxa ku sii doonaa gudaha xagee u socotaa guriga nooga bax bartaadan ha noo soo dhaafin anigu waxaan ugu hanjabay inaan waxan ku sameyn doono waxaana ku diray eegayga ayaana wuxuu bilaabay inuu si xoog leh ugu ciyo ninkiina wuu baqay kadibna wuu cararay aniguna waxaan si degdeg ah u xiray albaabka waxaana arkay walaashay oo fadhida sariirta oo ooynaysa aamus jooji oohinta oo baxay ninkii hadda uma imaan doono mar kale rumay ka tahay hawlweyn maxaad ka qabtaa haddii aan filim shidano way fiicnaan lahayd aad ayaan ugu farxi lahaa arrintaas kadibna waxaan daaranay TV-ga waxaana bilownay inaan daawano filimka laakiin maskaxdaydu waxay ku mashquulsanayd dhacdadii dhacday kadibna hooyada ayaa timid fiidkii markii la gaaray waxaan bilaabay inaan diyaariyo cashada hooyada ayaana soo gashay jikada sidee tahay Asma waan fiicanahay hooyo sidee tahay adna anigu waan fiicanahay xagee joogtay maanta oo dhan soo badan ayaan ka helnay beerta aniga iyo aabaha laakiin idinkuma arkin beerta miidan joogin hagee aadeen igadaa su'aalaha badan aad ayaan u daalanahay ee orod seexo haye hooyo waxaan isiri u sheeg dhacdadii nagu dhacday balse inta aan u sheegin way tagtay waxaana dareemay cabsi balse waan iska idhintiray anigii Arwo ayaana cashadii cunnay kadibna waxaan hubiyay inay seexatay Arwo waxaan anigu soo aaday qolkayga kadibna waan seexday markii aan seexday hurdada ayaan ka toosay si aan musqusha u aado intii aan u socday suuliga waxaan maqlay sawaxan kadibna waan istaagay kadibna waxaan maqlay qosol cabsi leh oo ka soo yeerayay dhanka qolka hoose aniguna aad ayaan u cabsaday kadibna waxaan maqlay qaylo markaas ayaan si degdeg ah uga orday qolkayga anigoo gariiraya waxaana daboolay wajigayga cabaarka bacdiina waxaan dareemay deganaansho balse waxaan maqlay albaabka qolkayga oo furmaya qofna uu u soo socdo dhankayga fadlan iga taga anigu waxba ma sameyn balse waxaan ogaaday inay tahay Arwo nahayda waa Arwo aan kuu sheegay waxaan maqlay codad cabsi leh oo ka imaanaya daaqadayda aniguna waxaan isku dayay inaan dejiyo iyada anigoo dhahaya hawlwelin waxba ma jiraan kadibna waan wada seexanay